السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا كسر داود وروح عاود يكاين عالمك يوتيوب كان شانل كا بدي بري دعوة كدنا ماملك ترام مينيسوتا يونس أيها دعوة شرعية قدبية ماملك ترام يقول كو إيدينيا تلاوي شرعي دراه أو كو سابسن حد قدب صعدالك أديك سعيدا فدرال waxaa sidoo kale jira arrimo siyaasadeed oo kale sida baaqiyo cashuur korodh iyo hadallo ku saabsan Greenland. Sidoo kale Trump Iran waxay rabtaa inay gorgortan la gasho Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in Iran soo jeedisay wadaxaajood kadib culaysyo diblomaasiyadeed iyadoo ay sii badanayaan dhimashada barnaamijyaasha gudaha ee Iran. Sidoo kale wararkii Afrika Nigeria wasiirka Abuja ee FZT ayaa beeniyay heshiis rasmi ah oo ay la galeen gobolka Rivers. Sidoo kale NARD ururka dhakhaatiirta joogtada ah ayaa hakisay mudaharaad ka dhacay dalkaasi. Sidoo kale Soomaaliya wararka naga soo gaalaya golaha wasiirada Puntland ayaa maanta shir ay yeesheen waxay ansixiyeen hindise sharci cusub oo lagu ilaalinayo madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed ee Puntland. waxaa sidoo kale la soo bandhigay go'aano siyaasadeed oo ku saabsan xiriirka ay Puntland la leedahay dowladda dhexe ee Soomaaliya. Sidoo kale madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Deni ayaa muujiyay diyaar garow uu ugu jiro ka qaybgalka wadahadalo qaran haddii lagu dhawaaqo fadhiyo ballaaran oo siyaasadeed. warar kale oo la xiriira siyaasadda iyo xaaladda gobolka waxaa ka mid ah taageero xisbi himilo qaran oo u muujiyay midnimada dalka iyo shirarka siyaasadeed ee socda iyo falcelin kala duwan oo ku saabsan arrimaha amniga iyo xidhiidhka maamul goboleedyada. sidoo kale wadahadallo telefoon oo Muqdisho iyo Kuuriya wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa khadka kula hadlay wasiirka koowaad ee Kuuriyada Koonfureed si looga wada hadlo iskaashiga badda iyo amniga xeebaha Gulf of Ocean, taasi oo qayb ka ah dadaalada Muqdisho ee la xidhiidha arrimaha diblomaasiyadeed ee gobolka. sidoo kale warar caalami ah ayaa sheegaya in China ay taageero buuxda siinayso Soomaaliya si loo difaaco midnimada iyo madaxbannaanida xilli ay kordhayaan xiisadaha gobolka. Soomaaliya ayaa si rasmi ah u beenisay inay heshiis Imaaraad ay ku salaysan yihiin kalsooni iyagoo ku tilmaamay kuwo wiiqaya madaxbannaanida qaranka. heshiisyadan waxaa ka mid ahaa dekedaha muhiimka ah sida Berbera iyo Boosaaso oo aan iyagu maamulin Berberaba. sidoo kale Soomaaliya waxay la daalaa-dhacaysaa abaaro daran iyo baahiyo bani aadanimo iyagoo malaayiin dad ah ay saameeyeen, waxaana jirta baahi weyn oo gargaar degdeg ah. sidoo kale waxaa la filayaa wiigan war weyn baa la filayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Gideon Saar iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa maanta kulmay waxaanay ka wada hadleen arrimo xasaasi ah oo gobolka ah. walla yar daawad cabdisalaam aynu falqaynay waxa kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya arrimo dhowr ah ayaa laga wada hadlay kuwaasi oo taabanaya danaha geeska Afrika iyadoo oo si weyn looga wada hadlay xaaladda la xiriirta aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland Israa'iil ay siisay. shirkan haddaba oo ahaa shir ka mid ah shirarka muhiimka ah Soomaaliland ay u dhagtaagaysa dhinaceeda iyo weliba sidoo kale guud ahaanba caalamku. Itoobiya war weyn oo farxad leh ayay soo saari doontaa warkaasi ka hor dhici mayno waynu sugaynaa. laakiin saaxiibayaal hal mid baan idin sheegayaa cadawga Soomaaliland waa sii badanaya marba marka ka dambaysa dadkeena isku xidhkoodu laakiin uu sii badanaya isaguna marka aynu sidaa ku wadno hadduu Ilaahay yidhaahdo wax khayra oo badan baan idin ogahay. saaka markaynu soo toosnay halkaynu taagnayn waxaanu kor uga kacnay 100% haddana. sidoo kale wararkan soo gaadhay ee hadda waxaa ka mid ah heshiisyadii Soomaaliya iyo Imaaraadka oo ay ku kala tageen. sidaasi waxa fursad halka ay uga soo baxday Somaliland oo aad ugu faraxsan kala tagaas wala yar daawada saaxiibtii Soomaaliya oo kala tagay
iyo caaway reer Somaliland oo dhoola cadeynayo xaqiiqdii bayna u maraysaa xilligan maxaa ku soo aadiyay arinta aan ku sheego ala kulli xaal heshiisyada la hakiyay iyo heshiisyada meesha laga saaray waxa kamid ah amniga iyo difaaca meesha waa laga saaray golihii wasiirada qaraarka way ansixiyeen ko laba sidoo kale arrimihii siyaasadda u dhaxeeyay imaaraadka iyo dawladda Soomaaliya meesha waa laga saaray saddex sidoo kale ganacsiga u dhaxeeyay labada dhinac meesha waa laga saaray imaaraadka marka su'aala meel taala marka su'aasha meesha taala waxay tahay ala kulli xaal hadalka waxa lagu daray bicnaha dawladda Soomaaliya waxay ogaatay Israa'iil heshiiska ee la gashay Somaliland ay ku aqoonsatay xataa imaaraadka inuu hadda mar dhow soo socdo dawladda way dareentay imaaraadka inuu aqoonsi sii rabo Somaliland dawladda way dareentay sababaha ay tilaabada u qaaday maantana la qarinayo bulshada in loo sheego la diidan yahay waxa kamid ah sababahaas hadda imaaraadka marka fursada u banaan marka fursada u banaan waxa waaye inay xiriir toos la samaysato Somaliland waliba xataa ay aqoonsato ala kulli daawadayaal war waxaan caalamkeedii ka haynay waan laga intaa tan iyo intan dib u kulmayno habeen wanaagsan assalaamu calaykum please subscribe share and like comment ma bixinaysaana ku soo dhufta dhag dhag ku soo siiya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bye